الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى ما أنت وحان إذن لو ذاقيا سؤال لويديي حسن البصري الله كرال نقضي أو أها تابعي وين حسن البصري وحال لويديي سؤاشن وحاية سدة حسن البصري ومحيتهاي سرت كدن بيسا الله كعبسي قال sideed ku gaartay inaad noqotid qof Allah subxaanahu wa ta'ala ka cabsada markaas buu xasan al-basri ku jawaabay afar arin ama afar qodob baan fahmay afartaas qodob oo ii horseeday in Allah subxaanahu wa ta'ala ka cabsado qodobka koowaad aan fahmay wuxuu yahay waxaan fahmay risqigayga inaysan cidna qaadanaynin kadib baa waxa laga helay qanaaco baa laga helay shaacirkiin hadalkiisu wuxuu ahaa لو ترك بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هذا الدنيا كتكتد أو سمد فوشيت أديكو رزق الدون أو رزق رادنا يسد كوب بيئة أنا لوجو ترجلين مسو هليسد مركا قناعة إن شيء لوجو قنعه وأرن مهم والله سبحانه وتعالى الله كعبسيس إنه دوينيس قلب كلابات أنا فهمه وحويري وحان فهمه ويري cibaadada in cid ii samaynaysa aysan jirin kadib baan bilaabay aniga inaan sameeyo markuu bini aadanka cibaadada daa'imo Allah subxaanahu wa ta'ala bay u dhawaysaa ilaa uu ka helo Allah ka cabsi arrinka saddexaad aan fahmay wuxuu yiri waxaan fahmay in Allah subxaanahu wa ta'ala uu ii jeedo uu daawanayo uu fiirinayo kadib baan waxaan ka xishooday buu yiri in Allah subxaanahu wa ta'ala hortiisa aan xumaan ku sameeyo waan ka xishooday taasna waxay ii horseeday inaan noqdo taqi qof Allah subxaanahu wa ta'ala ka cabsanayo qodobka afaraad oo ka dambeeyo inaan noqdo qof Allah ka cabsada wuxuu yahay buu yiri geerida baan xasuustay kadib baan bilaabay inaan u diyaar garoobo la kulanka Allah subxaanahu wa ta'ala Allah subxaanahu wa ta'ala fi suuratul baqara wuxuu nagu leeyahay وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بولي الله سبحانه وتعالى سهي قاتا سهي لقاتو مدو أقوة ناكسوا الله كعبسيقا مركا أفرتان قضب وأفر قضب أو مهم أن كفا إذا سنة إن شاء الله تعالى إن نقلها لقناعو إن عبادنا أنك أن سمينو إن الله سبحانه وتعالى وإن الداوانا ونوجيدا إن أغانو aan xumaantan hortiis ku samaynin geeridina xasuusanno kadibna la kulanka Allah subxaanahu wa ta'ala aan u diyaar garowno baa laga rabaa afartaas qodob baan jeclaystay maanta inaan idin la wadaago assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh